Djibouti waa dal yar oo dhaca xeebaha Geeska Afrika, tirada dadkiisana lagu qiyaaso 1 milyan oo qof. Guud ahaan waa mid ku fadhiya 23,200 kiiloomitir laba jibaaran. Sababo la xiriira marin-biyoodka Bab el-Mandeb, jasiiradda Khaliijka Carabta ee hodanka ku ah kheyraadka dabiiciga ah iyo marin-ganacsiyeedka muhiimka ah ee gacanka cadmeed. Djibouti waxay noqotay xarun ay dalal shisheeye ku loolamaan si ay uga dhistaan garoomo diyaaradeed, saldhigyo ciidan, iyo xarumaha saadka. Waana meesha kaliya ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin quwado iska soo horjeeda oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Shiinaha, Jabaan, Faransiiska, Talyaaniga iyo kuwo kale. Haddaba maxay tahay sababta quwadaha shisheeye ay ugu kulmeen dalkan yar ee dhaca xeebaha waqooyiga Afrika? Maxayse tahay sababta dalkan uu quwadaha shisheeye ugu oggolaaday saldhigyo ciidan ay ku yeeshaan dalkiisa? Waxaan ku lafaguri doonaa muuqaalkeennan, balse haddii ay tahay markii kugu horreysay, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. Marka aan ka hadlayno saameynta Djibouti, waa inaynu ka hadalnaa marin-biyoodka Bab el-Mandeb. Marin-biyood muhiim ah iskuna xira badda Cas iyo gacanka cadmeed, sidoo kalena ah albaabka kanaalka Suez, meel ay ku tiirsan yihiin ganacsiyada Aasiya, Afrika iyo Yurub. Cidda gacanta ku haysa ama saameyn ku leh marin-biyoodkana waxa ay saameyn weyn ku leedahay isku socodka badeecadaha kala duwan ee marinka Bab el-Mandeb. Haddii gacankani xirmo ama amni darro ay ka dhacdo, waxay ka dhigan tahay in 30% ganacsiga iyo shidaalka adduunku istaagayo. Waana sababta dalalkan shisheeye ay saldhigyo ciidan ugu leeyihiin dalka Djibouti si ay halkaas uga ilaashadaan danahooda ganacsi ee xeebaha bariga Afrika. Maadaama dalka Djibouti ay dhacdo Geeska Afrika, ayna xuduud la wadaagto dalal ay xasarado ka jiraan sida Soomaaliya, Itoobiya, Yemen oo aysan xuduud dhul la wadaagin laakiin ku taalla dhinaca kale ee Bab el-Mandeb. Quwadaha shisheeye ee dalkan fariisimaha ku lehna waa kuwo raba inay saameyn ku yeeshaan marinka muhiimka ah ee Bab el-Mandeb. Djibouti ma laha kheyraad dabiici ah sida shidaal iyo macdano, waxayna isticmaashaa xeeladda ah Small State Diplomacy. Xeeladdan waa in dalku uu saldhigyo militari siiyo quwadaha caalamka si uu dhaqaale iyo ammaanba u helo, una horumariyo saameyntiisa istiraatiijiyadeed. Waxaana uu dalkan dhaqaale xooggan ka helaa kharashaadka kirada ah ee ka soo xarooda saldhigyada ciidan ee dalalkan shisheeye ku leeyihiin dalka Djibouti. Dowladda Djibouti waxay u aragtaa joogitaanka quwadaha shisheeye dalkeeda inay ka caawinayaan xasiloonida gudaha, sidoo kalena adduunka ku yeelato sumcad iyo muhiimad gaar ah. Waxaana Djibouti ay hadda tahay xarunta ugu weyn ee militari iyo ganacsi ee Geeska Afrika. Inkastoo saldhigyada shisheeye ee ku yaalla gudaha dalka Djibouti ay ka soo xaroodaan malaayiin dollar, haddana ku tiirsanaanta saldhigyada ciidan waxay ka dhigaysaa Djibouti bartilmaameed siyaasadeed haddii ay quwadaha waaweyn isku dhacaan. Waxaana jiri kara cadaadis caalami ah ama khilaaf siyaasadeed oo ka imaan kara dalalka saldhigyada ku leh. Sidoo kale, ku tiirsanaanta dakhli ka soo gala saldhigyada waxay xadidi kartaa horumarka dhaqaalaha kale ee gudaha, sida warshadaha iyo tamarta cusub. Inkasta oo dowladda Djibouti ay xoogga saarayso kobcinta dhaqaalaha mustaqbalka, iyadoo la rajaynayo inuu dhaqaale ahaan ka baxo ku tiirsanaanta logistiga iyo dekedaha, islamarkaana uu maalgeliyo tamarta la cusboonaysiin karo, tiknoolajiyadda iyo hal-abuurka, dalxiiska iyo isku xirka gobollada. Djibouti waa dal muhiim ah islamarkaana dhaca boos istiraatiiji ah, waana sababta quwadaha dunida kulmisay si ay saldhigyo ciidan uga samaystaan, galaangalna ugu yeeshaan marin-biyoodka Bab el-Mandeb. Waxaana halkaas ku soo koobaynaa sababta dalalka shisheeye saldhigyada ugu leeyihiin Jamhuuriyadda Djibouti.